السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة ميل والبال joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha kala bartay halka kala socotay barnaamijkan waa ogaalka ciyaaraha. fadlan hadii tahay booqashadaadii ku horeeyad soo booqatay fadlan subscribe na saar, like na saar, gambaleelka noo furo aad baa kaaga macnaa daawashadeena. maanta barnaamijkan waxaa ku maqli doonta kooxda kubadda cagta Chelsea oo doonaysa inay ka dul qaato Liverpool ciyaaryahan qadka dhex ka ciyaar hadda waa Klopp oo walwal ku abuuray taageerayaasha Liverpool ka hor kulanka Chelsea. مية كوحدة اتفاق دونيسا صحيحة محمد صالح ستيفن جيرد ayaa ka jawaabay kooxaha Premier League oo xaqiijiyay in 5 kooxood ka ciyaari karaan Champions League. Neymar oo ka tagaya Paris go'aan ka qaadatay iyo warkii ugu dambeeyay suuq kala iibsida Raya, Neymar, Kane, Totti, Walker. kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa lagu soo waramay in ay dalab rasmi ah ka gudbisay saxiixa qadka dhexe ee kooxda Southampton ee Romeo Lavia sida ay sheegeen wararka. dhacday championship-ka ayaa dalbanaysa 50 milyan oo euro waxayna Liverpool ka diiday 3 dalab oo madkiiba ku ugu dambeeyay ahay 46 milyan euro. Southampton oo James Ward-Prowse ka iibisay West Ham ayaa sidoo kale filaya in ay Man United ku soo biirto tartanka xiddigan. sidoo kale kooxo kale oo ka baxsan Ingiriiska ayaa xiiseynaya uqtar ayaa ku kalsoon inay heli doonaan lacag ay ku qiimeeyaan xiddiga iyadoo oo aaminsan in Man City bixin karto 45 milyan oo lagu burburin karo heshiiska xagaaga dambe. Chelsea oo ku dhibaatoonaysa saxiixa xiddiga kooxda Brighton ee Moussa Caicedo ayaa sidoo kale la filay inay 20 milyan kula wareegto xiddiga kooxda Leeds ee Tyler Adams. Jordan Klopp ayaa qirtay in Liverpool ay weli u baahan tahay inay hesho shax kaga hortagto kulanka furitaanka Premier League. kooxda kubadda cagta Chelsea Liverpool ayaa guul ku soo xirtay kulamadii saaxiibtinimada kulankeedii ugu dambeeyay waxay ciyaartay kooxda Dor Stadium 90. kooxda Klopp ayaa u safri doonta Stamford Bridge axadda kulankoodii ugu horeeyay ee Premier League xilli ciyaareedka cusub iyadoo la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee The Blues Chelsea. laakiin tababaraha ayaa sheegay in kooxdiisa aynan weli degin qorsho ka hor kulanka Chelsea ee bilowga ciyaareedka. sida iska cad waxaan u muuqana kuwa aan daalneyn oo fiican 6 maalin ee soo socota waa in aan helno shax aan kaga hortagno Chelsea ayuu Klopp yiri. ma jirto cid dhaawacna ay qabto ama cid wax xanuun ay qabto dhammaan fid ayaan ayuu yiri Klopp, balse waa in u degnaa qorshihii aan guul ugu soo gaarleen garoonka Stamford Bridge ayuu yiri macalinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jordan Klopp. kooxda kubadda cagta اتفاق ayaa la xiriirinaya Mohamed Salah balse arrimahaas waxaa beeniyay macalinka kooxda kubadda cagta ee اتفاق Stephen Gerrard ayaa sheegay in uunan doonayn in uu kooxdiisa keeno xiddiga Liverpool ee Mohamed Salah. Stephen Gerrard ayaa weerar suuqa ku qaaday kooxdiisa kadib markii uu kala soo saxiixday kabtankooda Jed Henderson bishii hore. Henderson ayaa soo afjaray 12 sano oo ku sugnaa garoonka Anfield kadib markii loo soo bandhigay heshiis qaali ah oo isbuucii ku qaadan doona lacag gaarayso 700,000 oo gini oo isbuucii ah. waxaa jiro war sheegay in ay kooxda Stephen Gerrard mar kale qorsheynayso in ay Liverpool kala soo wareegto Mohamed Salah. laakiin Gerrard ayaa beeniyay in uu wax xiiso ah u qabo saxiixa xiddiga reer Masar sida laga soo xigtay Sports Bill mar wax laga weydiiyay hadii ay kooxdiisa xiiso u qabay saxiixa Salah ayaa yiri maya. jawaabtu waa maya. Mohamed Salah waa ciyaaryahanka aan ugu jeclahay waana jeclahay kooxda kubadda cagta Liverpool sidaas darteed Salah halkaas ayuu joogayaa ayuu yiri Stephen Gerrard. laakiin suuqa waxa kasta ka filo kooxdii hore ma jirto. kooxaha Premier League ayaa aaminsan xil ciyaareedka 2024-2025 inay ku yeelan doonaan championka 5 kooxood oo ka socda horyaalka Premier League. had sababtu maxay tahay intaad ka ogaa doontaa barnaamijka waxa waaye ayaa laga yaabaa in ay la sameeyo xil ciyaareedka 2023-2024 iyadoo markii ugu horeysay 5 kooxood oo Premier League ah ay ku soo bixi karaan Champions League. isbedelka qaabka xil ciyaareedka 2024-2025 ayaa laga dhigi doonaa 36 kooxood oo ka qayb gali doono tartanka iyadoo boosaska dheeraadka la siin doono horyaalada kooxooda si fiican ugu ciyaara tartamada Yurub. ayaa lagu soo warmay in uu isaga tagayo Paris inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan ee Paris doonay markii ka tago Messi hore ugu tagay Mbappe ka tagay Fred hadda ka tagay raw Paris waa lagu kala tagay markaas
kooxda Paris oo lagu kala tagi doona oo sida lagu soo xigtay UOL Sport Neymar ayaa ka tagi doona kooxda Paris iyadoo oo si rasmi ah loo xaqiijiyay labada dhinac ayaa hadda ka heshiiyeen sidii loo kansalo heshiiska xidiga kula jiro kooxda France ninka wuxuu heshiis la gaaray kooxda Al Hilal heshiis rasmi oo la gaaray marka Neymar ayaa la xiriirinaya kooxda ka ciyaarta horyaalka Sacuudiga Al Hilal kuwaas oo la kulmay wakiilkiisa xidiga Al Hilal iyo Neymar way isla heshiiyeen hadda marka Neymar ayaa dhiman bis in heshiiskiisa la kansalo waxyaalaha qaar kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa lagu soo warmay inay ogoshahay inay kooxda ku biiro kooxda Bayern Munich suuq xagaagan kadib wadahadalo ay la galeen Bayern Munich sida ay sheegeen wararka Bayern ayaa doonaysa saxiixa goolhaye u bedelo goolhayada ku biiro kooxda kubadda cagta Inter Milan ee yani Sama sidoo kale in mar walba uu dhaawac Manuel Neuer ayaa ka dhigaysa in Bayern Munich ay u baahan tahay ciyaaradka goolhaye khibrad u leh ka ciyaarista Champions League Thomas Tuchel ayaa maamulka Bayern Munich ka codsaday in ay keenaan Kepa oo ay ka wada shaqeeyaan Chelsea intii uu tababaruhu hogaaminayay Bluega sida lagu soo xigtay wargeyska The Evening Standard kooxda Chelsea ayaa diyaar u ah inay goolhaya Kepa u ogolaato inuu ku biiro Bayern Munich badda cagta Barcelona ayaa lagu soo warmay in ay si xor ah ku weey karto xidiga khadka dhexe ee Gundogan inkastoo uu kaliya xagaagan ku soo biiray kooxda Gundogan ayaa qaab xor ah ugu soo biiray kooxda Barcelona wuxuuna ka tagay kooxda kubadda cagta Man City ciyaareedka hadda dhamaada laakiin sida laga soo xigtay 9 minute xidiga Gundogan ayaa qaab xor ah ugu tagi karo kooxda Barcelona ka hor bilaabashada xil ciyaareedka cusub Barcelona ayaa ku dhibaatoonaysa dhinaca dhaqaale waxayna ku dhibaatoonaysaa inay xidiga diiwaan geliso ka hor bilaabashada xil ciyaareedka cusub Gundogan ayaa heshiiskiisa ku daray in uu qaab xor ah ugu tago kooxda Barcelona hadii ay kooxdu diiwaan gelin weydo xidiga ka hor bilaabashada xil ciyaareedka marka shardiga oo Gundogan ku imaanay wuxuu ahaa hadii Barca ay diiwaan gelinaas inuu ka tagi karo xor ugu tagi karo Barca dhaqaal xumaas ka haysato waxa laga yaabaa inuu si xor ugu tago waana laga yaabaa in ciyaartoy meesha ka baxaan si idii loo saxiixo cagta Man United West Ham ayaa lagu soo warmay in ay ka heshiiyeen saxiix xidig Maguire Manchester United iyo way ka heshiiyeen waxaana soo xilay Fabrizio Romano ayaa soo sheegay in West Ham iyo Manchester United ay ka heshiiyeen saxiixa Harry Maguire mardhow Harry Maguire wuxuu noqon doonaa ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee West Ham labada kooxood ayaa hadda ka wada hadlay qaabka loo bixinayo iyo lacagaha gunooyinka noqon doona sida kale kooxaha ayaa bilaabay in ay heshiiska shakhsiga la gaaraan xidiga Ingiriis marka Maguire mardhow wuxuu ku biiri doonaa West Ham oo ku biir hada maqshabeesan si rasmi ah u furmay suuq kala iibsiga xagaag iyadoo kooxaha bilaabanay in ay suuq u kalaan xoojinta kooxaha si ay isugu diyaariyaan xil ciyaareedka cusub kooxaha kala duwan ayaa raadinaya xidig cusub oo ay doonayaan in ay ku xoojiyaan ka hor bilaabashada xil ciyaareedka cusub kooxda Bayern Munich ayaa diyaarinaysa dalab 110 milyan oo euro ay ku doonayso saxiixa xidiga Harry Kane si kasta ahaatee Bayern Munich iyo Tottenham ayaa weli ku kala fog qiimaha Kane kadib wadahadal cusub oo ay yeesheen kooxda Arsenal iyo Tottenham ayaa ku dagaalamay saxiixa xidiga kooxda Aston Villa ee Douglas Luiz kooxda Arsenal iyo Brentford ayaa ka heshiiyeen goolhayaha David Raya lacag gaaraysa 30 milyan kooxda Al Hilal ayaa doonaysa inay xidiga Neymar waxayna doonaysaa in ay kulanto ama ay la kulanto wakiilka xidigan xidig ayaa diyaar u ah in uu ka tago kooxda Bayern iyadoo uu kooxda Sacuudiga ah u ogoshahay in uu hal xil ciyaareed ama ugu biiro kooxda Barcelona taasoo xidiga uu rajeynayo inuu markasto Barcelona u ciyaaro kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa doonayso Totiba inay ka dhigato bedelka Harry Maguire kaasoo ku biiro kooxda West Ham kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa loo qabtay 48 saac soo aadan in dhameystirto saxiix xidiga kooxda Southampton qadka dhex u ciyaar ee Romeo Lavia Manchester City Kyle Walker ayaa go'aansaday in uu sii joogo kooxda Man City inkastoo uu hore heshiis ula kacay ama uu la gaaray kooxda kubadda cagta Bayern Munich santiin dhageysiga barnaamijka ciyaaraha fadlan subscribe saar like saar asxaabta aan u sharay waan ku mahadsantiin muuqaalka insha Allah